faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax miino oo mas'uuliyiin ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle lagu la eegtay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. qaraxa oo ahaa nuuca dhulka lagu aaso ayaa haleelay kulanyo galbinaysay mas'uuliyiinta gobolka Shabeelaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle kuwa oo ku wajahna magaalada Jowhar. sideenoo xaqiijiyeen mas'uuliyiinta gobolka Shabeelaha Dhexe qaraxa waxaa ku dhintay mas'uuliyiintii maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ee ciidamo ka tirsanaa kuwa dawlad goboleedka Hirshabeelle. xubnaha qaraxa ku dhinta ayaa kala ah gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka Shabeelaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe, wasiirkii hore ee ganacsiga maamulka Hirshabeelle Sabriye Cusmaan iyo Xasan Baldoos oo la shaqeynaya mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Shabeelaha Dhexe. madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka tacsiyay geerida ku timid gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka Shabeelaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe, wasiirkii hore ee ganacsiga maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo ka tirsanaa kuwa dawlad goboleedka Hirshabeelle. madaxweynaha ayaa sheegay in al-shabaab ay ka dambeeyeen qaraxa, wuxuuna tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen mas'uuliyiintii maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe. dhanka kale al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa lagu dilay mas'uuliyiintii gobolka Shabeelaha Dhexe. afayeenka dhanka howlgallada al-shabaab Sheekh Cabdilcasiis Abu Muscab oo la hadlay warbaahinta shabaab ayaa sheegay in howlgalku uu ahaa mid qorsheysan laguna qaarijiyay mas'uuliyiintii bartilmaameedka u ahaa. wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo kordhayay qaraxyada miinooyinka ee la eeganayay gaadiidka ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta gobolka Shabeelaha Dhexe.